بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أدبين سلامي أصحابتي ذا كحولان ميل كستا دقا دعوتان با وأنا أمال كيسا ما أنتو waxaan idin wadaa barnaamij aan rabo inaan idin soo bandhigo oo ku saabsan ashqaraar iyo unsi udgoona aan keenay laakiin intaan barnaamijka gelin waxaan ka hadlaynaa waxyaabaha laga dhaxlo dulmiga sideedaba dulmiga waxa laga dhaxlaa faqri baa laga dhaxlaa dulmiga waxa laga dhaxlaa godob baa laga dhaxlaa dulmiga waxa laga dhaxlaa adigoo noloshaada ayna caadi noqon oo gabigaagu wax xanuun bukaan socod baa laga dhaxlaa dulmiga waxa laga dhaxlaa colaado badata xanuunka kugu bata adigoo naftaada mar walba waxaad u baahan tahay iyo waxaad doonaysid aan midna aanad garanayn baa dulmiga laga dhaxlaa marka waxaan uga jeedaa dulmiga waxa laga dhaxlo waxyaabaha caynkaas oo dulmiga laga dhaxlaa bini aadamku ilaahay subxaanahu wa tacaala abuuray oo qof walba oo muslina oo caaqila oo baaliqa oo inaga mid ah noloshiisa waaniga hore u sheegay ilaahay subxaanahu wa tacaala halku marayo iyo jidku taabanayo iyo jidku marayo iyo wuxuu la kulmayo iyo waxa loo qoray hadday noqoto risiq iyo hadday noqoto maal iyo hadday noqoto caafimaad iyo hadday noqoto arsaaqadba intaba ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu qoraa waa maalintu dhashay adduunyada waxa ugu xun dadka isku dira ama diraadirayaasha dadka u kala warsheekeeya ama dowladu dowlad jecel inayna degin oo hadalka u kala qaada oo loo yaqaano daba dhilif oo iyagu wanaaga nacab dad waxaa jira gebigoodaba wanaaga nacabba wanaagaba ka xumaadaba oo wanaaga jeclaynba oo jecel buuqa iyo qaxarka iyo dagaalka iyo colaada raagtada ah marka dadkaas waa dad inagu dhex nool oo Soomaali oo inagu dhex nool waxay mar walba isku dayaan ay jecel yihiin dadka inay u kala sheekeeyaan ay hadal u kala qaadaan adigan kula saaxiibay haddana adigan kula colay meel walba waa jooga qofka kula saaxiibka kii cadowga kula saaxiibay adigu kula saaxiib meel buu taagay marka waxa weeyaan waa calaamad munaafiq waxyaabaha laga duceysto ee la Allah hayo laga shartir waxa weeyaan waxyaabaha loo yaqaan al-munaafiq qofka munaafiqi wajigiisa laga gartaa foolxumadiisa waxa laga gartaa uu gubtaa ma jecla farxad meel farxada ama meel degan oo qurux badan ma jecla wuxuu jecel yahay colaada wuxuu jecel yahay foolxumada wuxuu jecel yahay abaarta wuxuu jecel yahay dagaalka wuxuu jecel yahay inay dadku ismar walba isanka iska galaan isdilaan waa dad fi'ad inagu dhex jirta oo inaga mid oo Soomaaliyeed oo meel walba dunida ka joogta oo nacab deganaashada dadka isku dirtaa markaas inta la caqliya kana hadalkooda way dhageystaan oo way raacaan bini aadam ilaahay subxaanahu wa tacaala abuuray oo og arsaaqadiisa halku ilaahay uga qoray qof hadduu yiraahdo waan ka jaraya arsaaqada kama jiri kartid ilaahay baa arsaaqada bixiya arsaaqadana samee oo qofka siiya kuna manaysta marka waxa alfitna ashad min alqatl fitnadu way ka xunto qof adoo dilay yaani dadka u kala sheegaya ee marba waji qofka tusa marna waji fiican bay ku tusayaan kii kale waji kale tusayaan adiga waji marba nooc iyo dadka hadalka u kala qaada ee dadka isku dira waa dad inaga buuxa marka imka anu waxaan siyaasadda ma jeclaan ka hadlo inaan dhex galana ma jecli waxa jecel ku jirana ma jecli waayo siyaasaddu waa wax la barto waa subject la barto oo kamid ah subjectada kale iskuulada lagu dhigo ama jaamacadaha lagu dhigo oo loo dhaarto oo xaq dhankeeda loo beero waayo cadaalad ba soo galaysa waxa soo galaya xaq ba soo galaya in laga fogaado waxyaabaha dulmiga loo yaqaano waxyaabaha loo yaqaano khiyaanada waxyaabaha loo yaqaano xaq darada waxyaabaha loo yaqaano maxay timid koorka waxyaabahaas oo dhan siyaasadda lagu barto waa subject la barto laakiin ku Soomaaliland ku soo wada dhul dhacno mid walba intuu soo fadhiisto muraad soo gashto weyn laga koofid soo saarta ama jaakad soo qaato weyn ama jaakad boorna siyaasi baan ama waxa nin siyaasi oo ka tirsan halkaas waxa san ka hadlay wax Allah wuxuu ka hadlay ma jirto Allah wuxuu garanay ma jirto wax Allah wuxuu ku takhasusay ma jirto ee waaya adduunka markuu Yurub ka kaxeeyay ba xaq la soo wada beeshubto dadkii masaakiinta ahayd deganaa wadanka aan ay ku barakicina wax bartay wadanka joogay halkay ka gelaayeen ku asaasinta barteen jaamacada uga soo baxeen xaqooda dadkan kale Yurub ka soo baxay soo wada hayaamay ee xagga tagi ay ka qaateen boosaskoodii arrintan imika barakacayaasha laga soo xagga anu maraba inaan ka hadlo inaan galana ma doonayo mawduuca
laakiin wixii laga baahdo xagga mucaawanaadka qacanteedu way furan tahay mar walba qacanteedu way furan tahay wax walbana ilaahay baa arkay subxaanahu watacaala wax wadana ilaahay baa arkay subxaanahu watacaala wax walbo bini aadam ilaahay subxaanahu watacaala wax allaali wax indhihiis ay ka maqan tahay ma jirto xasharada walba maalin walba dhaqaaqda oo dulmi samaysa ama wax qabata intaba ilaahay subxaanahu watacaala uu ogyahay qof ilaahay subxaanahu watacaala isla himaanta waxbaad samaynaysaa oo ilaahay uu kaa aanu ku arkayn ma jirto wax walba ilaahay subxaanahu watacaala ayna allah subxaanahu watacaala laa tanaam walaa taqiib labada malikna wayna saareen catiiq waraqiib wax walba waxa qoray labada malik kii xumaanta qoray kii fiicnaanta qoray adiga hadaba saxiifadaada ama buugaaga saa doontid u buuxi weligii yaalihimeedu aragteen qof intuu dhintay lagu aasay maal weligii yaalihimeedu aragteen qof intuu dhintay lagu aasay xoolihiisii weligii yaalihimeedu aragteen qof caruurtiisii hore u qaatay gurigiisii iyo maalkiisii waa maal meedu aragteen qof dhintay oo baanaka wuxuu yaalo hor usii qaatay miyaad aragteen qof dhintay oo saldanad hadduu ahaan jiray ama madaxweyne ahaan jiray oo qaatay madaxnimadii saldanadii miyaad aragteen qof intuu dhintay wixii u daba nacleynaya ama wuxuu jeclaa ama wuxuu dhalay hore u qaatay waa maya miyaa laguu sheegi karaa maalinta ilaahay subxaana watacaala ku kaxayna ama ku qaadaya waa maya sakaraatil mawd marka lagu keenayo ama malikil mawd marka lagu keenayo maa laguu sheegaya waa maya waxaasoo dhan waxaa og ilaahay subxaana watacaala caalam alqeyb washahaada qof kaloo inaga midba ogaan kara ama wala saaxir baa ogaan kara wala faaliya ogaan kara wala kuwa sixirka sheegay beenta sheegay dajaaliinta baa ogaan kara waa wada beenaalo wada musixiriin waxay ogyihiin ma jirta caalam alqeyb washahaada ilaahay baa subxaana watacaala caalamkana ilaahay baa keenay subxaana dadkana ilaahay baa abuuray naftana ilaahay baa dadka qaada naftana ilaahay baa dadka ku celiya maalkii arsaaqada ilaahay baa dadka si laakiin dadka aan intaa iyagu ogeyn ee bulshada ku dhex jira ee 20 waji leh ee marba dhan u cararaya ee marba dhan u yaacaya ee marba dhan la heshiinaya ee marba dhan kasoo cararaya ee dadkii muslimiinta ahaa walaalaha ahaa isjeclaa fidnad oo kala dhex dhigaya ilaahay baa subxaana watacaala iyagu waxay soo haystaan inay sameynayaan waxyaaba xariifnimo inay sameynayaan waxyaaba qurux badan waxay soo haystaan inay waxyaaba fiican dad ku sameynayaan laakiin fitan bay ku sameynayaan fitnadana waa kii rasuulka calayhi salaatu wasalaam in alfitna ashaddu min alqatl in alfitna ashaddu min fitnadu way ka xunta qof adoo dilay marka ummadda Soomaaliyeed aan ka mid ahay amaan lahaan waa bahay u dhalay hooyaday u dhashay war afkan ku hadlay fahmayaan waxay doonaan baa noqdeen waxaan ognahay ummad Soomaaliyeed oo muslimiina oo ilaahay subxaanahu watacaala isku keen daray wax oo ka cabsiga ilaahayna subxaanahu watacaala darajo weyn ciyaarayo in ilaahay ka baqnaa ilaahay raali gelina in isyasin isku caayin qabaayil isku caayin kana tahay waxbaad gaaban waxbaa dheer waxbaa cayn kana الله عليه واحد دار يو واحد قابن يو واحد كسر يو قف يو واحد كوين يو واحد كحوين بدنا ما تشتو كلنا أولاد سعاني سقال بنقوى قدرنا وحنا كابرنا عيد وإله بينا أبرو آدم بينا وضع عليه حواء لقيا بالقضاء يلي حجدنا كل دون هاي ودك ده اللي حجقف باللهجة كو هذا يو ما لا إله كو أبيرا كان بيراي دون ده اللي يركش قايستو استحقروا إسجورسدوا إسبرتوا isku dhex milma laakiin dad walaalo oo muslimiin wadanaha inta ka garanaya laakiin xumaan in wada waa jirtaa xumaanta inta wada waa dul wajhayn iyo almunaafiq oo quraanka ilaahay subxaanahu wa ta'aala ahadiista markasta waa lagu soo hadal qaada lagu sheega almunaafiq iyo dul wajhayn qof sharaba iyo qof khayr ah way kulmi karaan laakiin waqtigan aan taagan shirki aad u batay oo wanaagiba aad u yaraaday qof walba wuxuu noqday inuu wajiga ilaahay intuu ka tago inuu bini aadam ilaahay subxaanahu wa ta'aala abuuray oo isaga la mid ah oo musqusha galaya oo shimbir abuuri kaleyn oo duqsi abuuri kaleyn oo quraanjo kicin kaleyn oo nafcid ku soo celin kaleyn oo cid naf ka qaadi kaleyn inuu u daba noqdo ku daba tukado taasi nolosheeda noqotay inta u badan weeyaan halka wax la yiraahdo loo go'an nifaaqina uu farabatay dad baa nacab nabadda dad baa iyagu yiraahdo waa la yasay dad baa yiraahdo waa nagala tira badan dad baa iyagu isku tilmaamo waxaana ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku tilmaamin quraanka ilaahayna subxaanahu wa ta'aala uu ku sheegin una lagu akhriyo aayad quraan oo soo degtay ahadiis qura soo dego cadeynayna inay jirin laakiin markuu bini'aadamku automatic laanu hadal maanta amaanahan isku qufilo qof lixaad laana ma dhaqaaqi karo ma socon karo wax ma samaysan karo wax ma qabsan karo daciif baana bini'aadam inaan bariyo weeyaan ana niyadda u sheegay inaan saahay niyadda waxaad gelisaana waa wax kugu dhaga kaama baxayaan laakiin hadda niyadda u sheego waxaan amaalkiisi ahaafa power
I can do everything I want. wax walba aan rabo waan samayn karaa xumaan iyo wanaagna waan kala garanaya aqligu ilaahay subxaanahu wa ta'aala iyo xayawaanka yani uu noo kala fadlo aqligu ilaahay anagaysi igamu dhigan xayawaan imu orana bini aadam san ku neefla u daba taagnaawo dhiidkaaga adigu aad shaqaysan soo saaran lahayd qof kale ka bariyo daba taagnaawo bari oo isii ku dhawax oo qacanta marba hoos dhigo oo aan jiifo lacagna qaato dadka aan isku diro oo dadka aan isku nifaaqo de ilaahay kuma oran laakiin adiga damirku ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku siiyay basa ku qalloociyo ka dhiga qofkaas nasiib daro ayaan daro wajahaad xumad ilaahay subxaanahu wa ta'aala kugu jiheeyay adna waa iska soo jihayn kali weedo jihaad fiican wad gali kali weedo markaad maxaad noqonaysaa you have to be noqoto munaafiq كلمة لا شيء وين تبدشها وانا قدرت وانا حميساه سمعت قفليه وانا سمعتك قاعده دولت دقن انا ضعفضي دي نفتي دي ما ملكي دي وحي دي نولشي دي وانا قدرت عدو اما عدو صنيساه ود مدح يسوق لسه ادو واحد بانت عاده قاعده واحد العقد ود بانت يو نيد ماني ادو واحد بانت العقد قاعدتي واحد بانت ادو انه بريسكا كو بسلاده ادو سو ديدين oo jihaad u soo galin ama u hawl galin ama ka aba u shaqo tagin oo soo daa waxanuusan baad u baahan tahay marka ummaddu waa madax isu galisaa oo masaakiintii danyartii la kiciya oo dadkii qurbaha jooga la kiciya oo oday waayeel la kiciya oo islaam waayeel la kiciya oo gabadh miskiinada la kiciya oo dhalinyaro wax baranaysa la kiciya cuqdad iyo waxa lagu abuuraya marka waa la kala sareeyo waa la kala hooseeyo kan waa ku nacabi kan waa ku nacabi ummadda muslimiintu waa ta ku ashaahata la ilaaha illa qofka bini aadamka ay jannada laga waayo baaxun ama akhira garan waayo ilaahay garan waayo kaasaas ummadda aana ku dhex jirin laakiin qofka ilaahay subxaanahu wa ta'aala garanaya ee garanaya qofka ilaahay baa abuuray adiga ilaahay baa ku abuuray aniga ilaahay baa abuuray maxaad ugu dheertaan ku aan kaaga gaabanay ama khulqiga ilaahay hadday noqoto waji hadday noqoto sar hadday noqoto timo hadday noqoto arag intaba ilaahay baa dadka u sameeya ilaahayna wuxuu uga dhigay reason in la isku jeclaado ijaab la sameeyo la isdhex galo ما إن قفل وقع عايو ساسادو أكتر أما عين كانت أكتر ما كانت كسر جدا ما كانت كسر جدا ما كانت وجدا وحكوا عايو قفك ضعيف كا اسمه قرين الله عليه لأنه وجدي لأنه كتشيل حقيقة مركا حقوق إلهي وبني آدم كإله سبحانه وتعالى كو أبوري هرت قفك لحق على إسقاط بعي حقوق إلهي لما قاله أموره إلهي لما تعبته إلهي صدق كو أبوري لما تعبته واي بني آدم إلهي بتكون حد قد بتقف ما تكون حد قد إلهي خلق يسبق عادي إلهي أنا وكو أركي لابد من إنه كو قري واحد شيء دست مركب واحد وأنا سقفكم إنه إلهي من رب الحمد لله رب العالمين كلوجو عاية أما كلوجو هبسوعية أما كلوجو المامي عين كاسنا إنه يسوون هذا البني آدم كله صنكون نافلي ونا تشتمين ونا جيسن أنا داوعين قلبي جيس محكوية لي وهذا قلبي جيس داوعه أو حكوية شو ده مركب وحوي وقف إلهي بقى من سنة بني آدم بقى من سنة كفر باقش مركز إلهي بتكون حد قدبتي شخصية إلهي كسيات كون حد قدبتي أقامتي كرشدي عقل إلهي سبحانه وتعالى كسيو حيوانك أدقي فضلك وفضلنا عقل إلهي سبحانه وتعالى كسيو حيوانك أدقي فضلك وفضلنا وكافضلي بتكون حد قدبتي بني آدم بعد مركز نقطة قف وتشيفه وأدعو عمي حنون كيس تاسنا وتاس مركز حنون شيء أمضى الصوماليات يعني أنا هالي قرنيسة ولا ظلم يسكت دايق ظلم ما وناكسنا وحب ضم بوا ظلم غلقنا حرام ومضى الصومالي بنا وضا ولاله انت وناقة وضنا وناقة وضا انت حمانت وضا اسكا قبطها وناقة وضدك وضا ولا قرنية فتن ضدك فسقا كل حجرة وضدك اسكو دره وضدك اوكرا الشقية ونبض ميلا لاتش علين وربط الصومالي سي قدامتين ودا اولشو تاسنا وسياسة ضدك الوكرا حضايو وعقلية منقابك وكل شيء صنعيه وكل راعيه وفي رصدا أنت قانتلي أنت قرشدلي أنت إلهي كعب صوتها ما بقاش السياسة دو كعرفتها ما أنا كده موقته ما أنا لا تعلم وأي واحد اللي أوجيها ده إلى الموقف كي يلين يكون أوديد أنت لك حيستل الضوء صداه إبراهيم معنى وأنت يكون قانته دو قابنت هاي قرشده دو قابنت هاي تاريخه دو قابنت هاي يكون دم بجيب جود بيهين زيرو فوق الزيرو كواس أودا جنول oo u sacabtuma oo raaca oo durbaanada u garaaca oo kabaha u qaada oo kuraasada uga kaca oo caabuda oo ilaahay ka dhigta kaana ku jirna halkiisu ka dagay maba jeclaba din dulmiga galaba marka waxaan u sheegay qof walba dulmi lagu sameeyay oo xaqdar lagu sameeyay oo la xaqray ilaahay kuma xaqrin walaalo ilaahay kuma xaqrin ilaahay subxaanahu wa ta'aala kuma xaqrin
كل سقاط نفس قاضو نلاش هذا كقاضو وحي دول بكو سبيان دول ودم الراجو كي دول مسبرق دول واحد دين باود إمك واحد وضع صاروخ إمك الصاروخ باود صاروخ مركو دول دين بقى ودي تري محل ورين تري دينكو إمك صاروخ باود صاروخ صاروخ صاصو دول الدين بقفك الدين بقفك قاع مركبو هرية أما قابط أما لهران مركو واحد الشعب الصومالي يوم الصومالي يكو أشتري لا إله إلا واحد رسول الله تانا وقاعدة نبض ماشي كنت أنت وقاعدة انت وضع حمانته وضع ضدك maxay toy u kala qaadayso warka isku diraysa maslaxadooda gaarka watana xasbi Allah wa ni'mal wakiil fiikum inta san kaga baxay halka waxa idin ka sheekeynaya maxay tahay ma sha Allah tabaaraka rahmaan unsigi kala dhaqaaq wada bixi wasan kala dhaqaaq wuxuu ku jira quraarada daas laakiin waxaan jecelahay marka waxaan u diraa daas lagu shubo waayo quraaradu way culus tahay unsigan laga soo shaqeeyay asxaabteeda hadaro udgoon lagu daray kala dhaqaaq laga dhigay dooqayga aan ku soo waday ma sha Allah tabaaraka rahmaan saaq horaan u shiday udgoonkiisa ka yaabi doontaan sallu ala nabi allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina muhammad maanta waa maalin khamiisa barnaamij jimca soo galaya hablaha doonaya way soo dhawaanayaan insha Allah ta'ala halkaas aan taa dhigaya waxaanu galaynaa ashqaraar iyo duruucdii ashqaraar maanta daawa laga qaaday daawasho wacan yurubgeenya heestii ugu dambeysay 2021 kana ila dhageysta khamiis wacan insha Allah wah xoog aan furma doonaan ku daala furantoodiyo قرمونا كتشيدنا وحدنا إيه الموضوع اللي كان يكانوا قال أبد السلام يا عبد المانتين خميس وأنا وناكسن يجمع مبارك I
حمد الله حمد ورد الدور كي هوري كادو ما عند قلب وصار على جروب ان شاء الله وهو عادي ما تدخل صار حسام الجرين كيلو وبينك يعني كلام بقى طبعا واحد ما جعله طبعا كلام جعله كلام تصور مصائر كل كلام بقى تسوي ده يعني وكل سوري لو باي بيسمو خفوا كلام بجعله هذا وقبصان كلام عادي ولا كلام لكن درع بيس كسوة دري نروح عندنا يا نروح عندنا يا كايد جاي أدود ما صنتهاي وقبلنا وعد كتشعلهاي دقيقة جيسك أنت هسوا أنتي ما أنت أشقرار يونس جود جونا كريمكي أمل له وبوحاه نوع والبا ما أنت أرى بدنا ندري أدنى ومهنا رير كندا رير سويدن رير فنلند هي الدنمارك أنت أصلا ما توصل شقية ما شاء الله تبارك الرحمن ما أنت بارتين بشقيني marka waxa sheegay customer-kayga in koon isfahamnay track number koonu garanay oo marka qofku wax doonayo halku ka eegto ku aan garanay amalkiisa ma naqaan wala noo sheeg intaan waan isla fahamnay ma sha Allah tabaaraka raxmaan dhamaantiin anoo idin jecel oo amalkiisa oo kaliya la idin jecel oo idin mahad celinaya adduunyada wanaag wax ka qurxin ma jiro wanaag qof aan ku noolaynay isaga u taala walbahaar iyo fool xumo iyo godob uu shaqaysan uu ka qaaday laakiin qofkii lagu sameeyay isagu waa raaxaysanaya shida uu shaqaysan uu ka qaaday laakiin qofkii lagu sameeyay isagu waa raaxaysanaya shida subxaan wanaagsan iska ilaaliya godobta dadka isu haysta in la yasay ama laga tira badan yahay ama inada waxa saa dhacay ama waxaan maba garanayee de meela ka barateen garan maaye kor soo qaado cid walba idinka ka qurux badan oo ka tala fiican qofka duu ilaahay aamino oo rasuulkiisa aamino oo qadarka aamino oo calafka aamino oo wax walba ku dhacayo ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu tala galay oo aamino oo hadana dadaalo kaasa cid walba ka sareeya cid walba saa ka sareeya wallahi alcadiib weliga qofku yasa ama khulqiga ilaahay kugu caaya أما كوجا عاي أبورت إله سبحانه وتعالى كسينا كوجا عاي هذا إلهي بعاي لكن سوق ما أقول إلهي عاي أو كوها سينو كعاي أنا ما تخاف كورد ما نساس أضوء إلهي ما يسمى إلهي الله أرض إلهي الضاد إلهي نوك أرك مركا ووح ربانية وقفك خبيثك أما قفك حمانته وذا الوقرت إلهي سبحانه شنو دي عذاب والله ما يرد ما هنا وذا قلنا شنو we have to go عذاب زوال مركا قفك إلهي خلقي يسقفك عايو أما خلق إلهي فرق اليوم أما كإلهي كم مشغولو أما قف مسكين كم مشغولو أما ضيق كم مشغولو أما مسكين سوال كم عايت ما هو كتاجنادو عندك رب إلهنا وجهه سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة إسقى كل حق هذا كل السوق هذا نرش هذا آمن سنو إن تكوسر ريت ووسر ستها عند كاسر رينبا وإلهنا آمنت قف كرصن كنا فلا وبني آدم وبشرنا يعني أسيس أهمية سين وتإلهي والتوكل من يتوكل على الله فحسبه ساس نوشكم معانت لكن قفك سرية قفك هوسية قف عين كاهن تري أنا سأو كاتش تري أنا سأو دوس تري حاس مشتقينا يعني آخره نبويا لور إف كانوا امتحانه دار المؤمن ولا سكون امتحانه يقف المال بو درجة لك واحد وقتان إن نقوى ضد على ناس قال وقفنا قفك في عنا قفنا قف كسرين قفنا قف كلاندير لكن كنا هاي عيال 9 كي لقوا يشنادنا ويهدي سوق داكي لانديرها marka aad baan salaamaya aadna wadin jeclay khamiis wacan wanaagsan baan sidaa iyo maalin wacan wanaagsan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh